shirkii guusha ahaa ee maanta ku soo dhamaaday halkan oo madaxda dalalka safka hore oo Soomaaliya martigelisay ay kulan ku yeesheen magaalada Muqdisho. kulankani muhiimka ah sidaan hore u sheegnay waxaa shir gudoominaya madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud. waxaa kala soo qayb galay madaxweynaha dalka Djibouti mudane Ismaaciil Cumar Geelle, madaxweynaha dalka Kenya William Ruto iyo ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed. waxaa ajendaha kulanka u ahaa in laga wada hadlo arrimaha amniga gobolka, howlgallada guuleystay ee dowladda federaalka ee Soomaaliya ay haatan wado ee ka dhanka qawaariijta, kuwaas oo u baahday in wada tashi lagala yeesho dalalka deriska ah maadaama qataraha shabaab aysan ku koobnayn Soomaaliya, suuragalna ay tahay in qatarahaasi ay ku sii faafaan dalalka gobolka haddii aanay jirin iskaashi dhinaca amniga ah oo si hoose ay uga wada shaqayn karaan madaxda. shirkaasi madaxweynaha uu shir gudoomiyay madaxda kale kala qayb galeen waxaa looga hadlay qodobadaas aan sheegnay dhanka amniga. waxaa ugu muhiimsanaa oo qodobada la isku raacay ka mid ahaa in si guud ay isku wada raaceen horumarka Soomaaliya ka sameysay dhanka in ay nabad ku soo dabaasho dalka iyo dagaalka lagu hayo argagixisada. qodobada ugu muhiimsan waxaa ka mid ah in ay isku raaceen wadamadani muhiimadda ay leedahay in si gaar ah loo xishmeeyo midnimada dhuleed iyo madax banaanida Soomaaliya, isla markaana xorriyadda Soomaaliya ay tahay mid lama taabtaan ah oo dalalka deriska ay mar walba ay u taagan yihiin inay xishmeeyaan. waxaa si aad loogu ammaanay dowladda iyo shacabka Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya dadaalkii iyo sida ay u muujiyeen inay ka go'an tahay in ay dalka ka xoreeyaan khawaarijta al-shabaab. waxaa kaloo isla gartay in loo baahan yahay in taageero hil iyo hoob la garab istaago Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo ciidamadeeda qaranka hawshan ay ku jiraan dib u xoreynta amaba in wadanka laga sifeeyo khawaarijta dhibaatada ku noqday amniga gudaha Soomaaliya, qatarna ku ah amniga dalalka gobolka iyo caalamka intiisa kaleba. waxaa la isku raacay oo ay soo dhaweeyeen madaxdii ka qayb gashay shirkan dadaalada dhinaca siyaasadda ee dowladda federaalka ee Soomaaliya ay wado, gaar ahaan kulamada NCC ama golaha wadatashiga qaranka oo Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya dowladeeda dhexe iyo dowladaha ka mid ka ah ee federaalka ay kaga hadlayaan ajendaha iyo in isku meel la isu wada keeno dagaalka ka dhanka ah khawaarijta al-shabaab. waxaa kaloo si weyn halkaasi loogu ammaanay ama shirka go'aamadii ka soo bax ka mid ah oo lagu taageeray bogaadina loogu jeediyay ciidamada ADMIS ee midowga Afrika dadaalka ay ka wadaan Soomaaliya goboleeda kala duwan. waxaa sidoo kale soo dhaweeyay dadaalada Soomaaliya ay wado ee dib u qaabeynta ciidamada iyadoo ay jiraan ciidamo badan oo Soomaaliya tababaro meelo kala duwan ka soo qaatay gudaha iyo dibaddaba. ujeedkana uu yahay in ay ka guul gaaraan xoreynta dalka isla markaana amniga dalka ay sugaan. waxaa kaloo la soo dhaweeyay codsi ay soo jeedisay Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya oo ah in dalalka ciidamada ka jooga Soomaaliya ay si laban taageerada ay siinayaan Soomaaliya haddii noqoto dagaalka haatan lagu jiro argagixisada al-shabaab, in xuduudaha dalalkaasi iyo Soomaaliya leeyihiin laga ilaaliyo in ay arbushaad amaba ay shabaab halkaasi ka gudbaan. arrimahaasi ayaa ka mid ahaa. waxaa kaloo laga dalbaday beesha caalamka in ay Soomaaliya ka taageeraan barnaamijka xasilinta, waayo marka howlahan dib u xoreynta ay dhacaan waxaa xigaya in deegaanada la xoreeyo iyaguna ay helaan agabyadii loo baahnaa baahiyihii halkaas ka jira la daboolo, sida waxbarashada, arrimaha caafimaadka, maamul in loo sameeyo, isla markaana amniga halkaas la sugo oo loo dhiso ciidan sugi kara amniga meeshaas looga